maamulka degmada Garadag uu hogaaminayo maayirka degmadaasi Faarax Aadan Ciise oo ay weheliyaan qaar ka mid ah uqaashi waxgaradka iyo culimada degmada Garadag ayaa goobjoog ka ahaa diyo xoolaha oo ay la kala wareegayeen laba beelood oo dab iyo ood wadaaga diyadan oo ka turjumaysay nin ku dhintay shil gaari oo ka dhacay dhawaan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana halkaas ugu horeyn ka hadlay labada caaqil ee kala metelayay labadan beelood ee la kala wareegay diyadan xoolaha waxayna yiraahdeen geelan ku kala qaadanay shil baabuur inaan ku dhintay baaqiyadiisii oo noo taxanaa qowliba qayrnaa harsan yahay maanta halkan waxaan ku wareejiyay qoladan geel kontona 49 konton maan wadno hal baa naga xanuusatay 49 maanta halka ka xaynayaan iyo lacag 5500 oo geel aad u sharaf leh ah oo aan daldalool lahayn qurux leh aan ku qaacay baan halkan ku qaadanay iyo lacag dan 5500 oo dollar wixii haray baaqiyana burcaan isku doona hadii la ka naftu gaadho ciyaalka saasaan isku ogol lahay ugu ducaynayna karaamo iyo sharaf ay ku leeyihiin aanu ku salaameynaa waxaanu leenahay dankoodayana waxa ka hadlay maayirka degmada Garadag Faarax Aadan Ciise iyo qaar ka mid ah culimada iyo qurba joogta degmada Garadag waxayna yiraahdeen mag ku dhacday xaashil oo baabuura runtii waa wax turxaan lahayn si wanaagsan baa labada reer ee ehelka ah kii ma garanaysa magti bixinayay kii kale baa ay kala gudoonteen annaguna waanu ku hambalyeynaa waxaan leenahay insha Allah taala samir wanaagsan iyo qoladana Ilaahay meesha ku soo saaray khayr ugu bedelo qoladana waxa weeye samir iimaan iyo si wanaagsan Ilaahay ma garanaysa in ha ugu day xooleeyo kala qaadanayo Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ehelkiisina waxaan leenahay bedel iyo ciwalsan Allah ka siiyo xoolaha ay qaateen Allah u barakeeyo qolada bixisay oo waxa weeye shirku ku yimina iyagana waa u mahad celinaa waxaan leenahay sida waqtigii aan gaarin ay isaga xil saareen oo bixiyeen iyagana aqliga iyo cuudkaba Allah u barakeeyo waan leenahay waa aniguna reer magaal baana iyo qurba joog ala kulli xal beesha talba si fiican u wada hadlay si fiican soo fahmay si fiican soo toleeyay waa lagu heshiiyay ومحمد قنبوري أريال TV دق مدى قربق